habeen ay ciid tahay ayuu ninkan soo galay dukaan lagu iibiyo dahabka. waxa uu heliyay xaaskiisa, waxaana gadaashiisa taagan hooyadii oo sida wiil yar oo u dhalay. xaaskiisii ayaa qaadatay dahab fara badan si loogu iibiyo. ninkeedii ayaa ku yiri ninkii wax iibinayay, waa imisa xisaabtaadu? dukaanlihii ayaa yiri, waa 20,100 riyaal. wuxuu fiiriyay markiiba miisaanka, wuxuuna arkay 20,000 oo kaliya. wuxuu dukaanlihii weydiiyay halkay ka timid boqolka dheeraadka ah. dukaanlihii ayaa ku yiri, hooyada ayaa qaadatay faraanti. keen faraantiga ayuu hooyadii ku yiri, wuxuuna u celiyay dukaanlihii, wuxuuna u raaciyay, cajuuso adoo kale ah ma ahan inay xirato dahab. hooyadii way oyday markii ay hadalkaasi maqashay, waxayna aaday banaanka. xaaskiisii ayaa ku tiri, maxaad samaysay? sawma ogid inay ku soo xambaartay? waa hooyada oo weli jaariyad kuwa. kadib markuu iibiyay dahabkii ayuu soo aaday hooyadii oo gaariga saaran, wuxuuna ku yiri, hoo faraantiga haddaad rabto. hooyadii ayaa ku tiri, maya wallaahi ma rabo faraanti, waxaanse rabaa inaan u farxo sida xaaskaaga iyo dadka kale. waxaad se dishay rajadaydii ee allaha ku dhowro hooyo. 6 bilood kadib markii ay arrintaasi dhacday, waxaa guriga la keenay dawooyin waxyeelayn kara caafimaadka wiilkeeda. hooyadii ayaana u soo gashay iyadoo ka walwalaysa caafimaadkiisa una muujinaysa jacayl. waxayna daaqadda ka tuurtay dawooyinkii. wuxuu u qayliyay sidii qof waalan, wuxuuna guriga degdeg uga saaray hooyadii iyadoo ka baqatay inuu u gacan qaado. way soo baxday hooyadii iyadoo leh, alla kuu gargaar wiilkaygiiyow. waxaa go'ay xiriirkii u dhaxeeyay wiilka iyo hooyadii in muddo ah. wiilkii waxaa u soo galay xanuun saameeyay jirkiisa oo isbitaal la dhigay. markii uu ka soo baxay isbitaalka kama soreyn xaaladiisa, waxaana u sii dheereed fikir iyo in maalinba maalinta ka dambaysa ay xaaladiisu sii xumaanaysay. maalin maalmaha ka mid ah ayuu arkay wadaad ka hadlaya telefishinka. wadaadku wuxuu ka hadlayaa waalidka oo baari loo noqdo iyo qaraabada oo la xiriiriyo. dhagaysi dheer kadib wuxuu ogaaday in musiibada haleeshay ay tahay dhibaatadii uu u geystay hooyadii. wuxuu bilaabay inuu baadigoobo hooyadii ilaa ugu dambayn uu ka soo helo. wuxuu ugu tagay guri burbursan oo aad u yar, waxayna cuntaa waxay dadku ku sadaqaystaan. wuxuu qabsaday lugaha hooyadii isagoo weliba aad u ooyayo ilaa ay ka cafisay. markii uu sameeyay baarinimadaas, wuxuu ka caafimaaday xanuun oo dhan, waxaana u soo laabatay noloshiisii hore. wuxuuna hooyadii u hadiyeeyay hantidiisii oo dhan si ay uga raali noqoto una cafiso.